Bismillahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan soo booqanay safaaradda Bosnia oo nalagu martigeliyey oo bulshada Soomaaliyeed oo UK. Haddana waxaan la joognaa safiirka Bosnia, His Excellency Mr. Cusmaan. Asagana wuxuu fariin usoo dirayaa bulshada Soomaaliyeed oo ku nool dalka UK. Waa fariin xambaarsan oo kashka iyo laabta ka soo go'day oo ku boorinayo bulshada Soomaaliyeed inay soo booqdaan Bosnia iyo inay ka bartaan nabadeynta heerka ay ka gaareen. Bal ila dhageysta fariintiisii muhiimka ahayd. Barakallahu fiikum. I am Ambassador of Bosnia and Herzegovina to the UK. My name is Osman Topčagić. I warmly invite Somali community in the UK to visit Bosnia and Herzegovina. You will see country of extreme natural beauty. You will see country with historic heritage, beautiful cities, mountains, rivers, lakes, and you will enjoy excellent food. Moreover, you will be met by hospitable people who will welcome you on every step of your journey. Welcome to Bosnia and Herzegovina. Thank you. And His Excellency Mr. Osman, we share some history about civil war in Somalia, but we need to learn more about your peace, how you achieved peace in Bosnia, the same way we need to replicate in our country. Give us some advice on how you managed to implement the and what we can learn as a Somali community, and give your advice on the peace process. Bosnia and Herzegovina had war which lasted nearly 4 years. War brought destruction, killing, and resettlement of people. Economy was destroyed. Millions of Bosnians Herzegovinians left their homes. Some throughout the country, many of them left Bosnia and Herzegovina. It was not easy to reach peace agreement. There were efforts from international community, negotiations, while people were suffering on the ground. Peace agreement was reached 30 years ago. Negotiations organized by United States and other Western countries in Ohio in United States. Since then, Bosnia and Herzegovina lives in peace. Peace agreement, General Framework Agreement for Peace, as it's officially called, contained basic text agreement, framework agreement for peace, and also annexes, which defines different aspects of our lives and political system that we have in Bosnia. One aspect of the peace agreement was right of return to previous places of origin. So all refugees and resettled people got right to return to their previous places of origin. Some of them decided to return, some decided to stay where they were, but all of them got property returned to their possession, which is very important aspect. Another aspect is freedom of movement. So although country has different administrative arrangements within its territory with two entities, 10 cantons within federation, and so on, people enjoy freedom of movement. Also single economic space, which means that business is done throughout the country in equal way and that people work together. Institutions of state of Bosnia and Herzegovina, which were established as a result of peace agreement, are composed of representatives of different ethnic groups. In Bosnia and Herzegovina, there are Bosniaks who are dominantly Muslims, there are Serbs who are dominantly Orthodox Christians, and there are Croats who are Catholic Christians. All of them are represented in state level government, presidency, parliament,
and all other institutions, also in a diplomatic network. That's the ways how to build confidence among warring parties and how to talk about our common future. In the meantime, in these 30 years, there were significant achievements, progress made, but also some issues remain problematic issues about which there are different views of political actors and their representatives. So international community is still present in Bosnia and Herzegovina. We were working together to come to this point, and I hope we shall jointly move forward to provide stable future and progressive future for our country and our people. Thank you very much, His Excellency, and thank you very much for hosting us in the embassy. We are grateful and a great pleasure for us to be here, and we hope Bosnia lasts in peace and the economic growth and the tourists to have to multiply and have a domino effect, inshallah ta'ala, and we will encourage the Somali community to visit Bosnia, to see its natural beauty, to learn from its the peaceful resolution that they have taken, and we have a lot to share. And it's great pleasure to have you. Thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت شرف أي تهاي إن جوجو سفارة بوسنيا هرسغوفينا كل هذا لندن halkaas oo lagu sharxayo muhiimadda in la soo tago la soo booqdo dalxiis loo tago waxaan la kulanay safiirka oo nooga sheekeeyay runtii arrin aniga si gaar ah taabatay maanta oo ah 30 sano ka hor maanta waa 30 sano ka hor waqtigii dagaalkooda xalka loo helay oo heshiiskii ahaa lagu sameeyay kadibna Paris lagu sameeyay safiirka waxyaalihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahayd wuxuu yiri anaga heshiiska markii la saxiixay waxyaalihii aan sameeyay waxaa ka mid ah guriyihii la kala haystay oo la isku celiyay dadkii isdhex galeen marka anagana waqtiga ayaga dagaalkooda dhacay anagana wadankeena dagaal ku dhacay ilaa haddana waa la soo rafaadeena waxyaalaha qaarkood ayaga ku guuleysteena anaga ilaa hadda nooma hirgelin marka waxaan rajeynayaa inay anagana noo noqoto tusaale dib u heshiisiinta dhabta ah iyo cadaaladda waxaa ka mid ah xuquuqda bini'aadanka in la isku wareejiyo markaas ayaa quluubtu ay heshiin kartaa qof wixiisa ka maqan yihiin si kastaba maaragtay way ku adagtaa inuu ogolaado marka dowladnimadana waxaa ka mid ah maxkamada in la sameeyo in maaragtay cadaaladda iyo sinaan marka intaas uga baxo waa casharkii aniga aan kala baxay waxaa horta rabaa inaan u mahadnaqo ustaad baasi busuri oo halkan caawa igu marti qaaday waana rajeynayaa Bosnia ilaahay idinkiis inaan tago oo soo booqdo sida quruxda badan ee loo sharxay webiyadii quruxda badnaa iyo durduradii iyo buurihii waterfallskii cuntadii dadkii maaragtay aad iyo aadka loogu faaniyay inay soo dhaweyn ay yihiin waxaan soo xusuusay dalkeena because dadka Soomaaliyeed ayagana waa dadka soo dhaweeyo bismillaahir rahmaanir rahiim waa salaamaya kulligiin dadkana daawanaya jaaliyadda Soomaalida oo London ku nool dad ka mid ah wiilal iyo gabdho waxaan ka soo qaybgalay caawa xaflad la isku arkay magaalada London magaalada dhexdeeda oo safaaradda Bosnia Herzegovina ay dadka ku casuntay xafladana waxay daaran tahay 30 guuradii ka soo wareegtay heshiiskii Dayton oo lagu heshiisiyay dagaalka Socoto markuu ka dhacay ummadaha ku wada nool halkaas heshiiska ay galeen ay ku badbaadeen dalkooduna horumaray waxa ujeedadu ahayd in dadka adduunka ku nool ay ka faa'iideystaan arkaan horumarka iyo nolosha taalla hadda Bosnia iyo Herzegovina oo dagaal Socoto ka dhacay lagana soo qabtay waxa anaga caawa aad hadnoo ahayd inaan ogaano in ummad dirirtay heshiin karto oo ay ka kaban karto dhibkii soo gaaray oo ay si fiican ma garatay isu dhex degan yihiin noloshooda hadda caadi kullu ay ku soo noqotay aad baan ugu faraxsanahay meeshan safiirka iyo staafka safaaradda inuu soo dhaweeyay oo meel daafaha adduunka ka yimid oo soo yimid si caawa loo dhageysto maxaa ku radaa khibradda qaaliga ah ay noo sheegeen ay ka gaareen horumar